قروحو هرمرا شقلا هرمود كي أجر لي مركي تعا هجنوجو هذا هوشيتنا هجو هجنوجو هذا هوشيتنا هجو هرجوجو هاول كركي وحنا بليو أبد كان وحبلي وين إلا كره فايو هلو قادا أبد كان وحبلي waxaa jira isagoo kaashanaya shaqaalaweynaha hay'adda shaqaalaha ayaa gudoomiyay wuxuu had iyo goor u taagan yahay aroor iyo habeen iyo galab in aynu sameeyno maadaama aynu nahay hooyadii shaqaalaha ee qaranka inuu nin kastaaba mas'uuliyadiisa ka soo baxo oo uu wixii contribution u gelinayo wadankiisa oo uga mahadcelin afar ilaa 10 saacadood uu garab taagan yahay shaqaalo quruxdan oo wanaagsan oo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda Cabdikariin Maxamed Xaaji Cali agaasimaha maxadka guuleed hagoog komishineerada iyo madaxa World Bank Cabdi Aadan isagana aad baan u salaamayaa waxa kale oo aad u salaamayaa agaasimo waaxidiyada hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii qayb lixaad ka ah horumarka ay gaadho hay'adda shaqaalaha dawladdu waxa kale oo aad u salaamayaa shaqaalaweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan hay'adda shaqaalaheeda dabcan xafladda waan soo koobi doonaa hadalladana way noo soo koobnaan doonaan waxaan jecelahay inaan xuso waxaa jira shaqaale fara badan oo hay'adda shaqaalaha kamid ah oo runtii qaar xanuun ku maqan yihiin iyagana waynu ducaynaa maanta fursaddan aynu ducaynaa fursaddan oo kalena waa laga faa'iideystaa inay shaqaaluhuna isa saamaxaan iyadana meeshaynu ku daranaa muddadii yarayd ee uu joogay muxuu ahaa gudoomiyaha Farxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxaan ka soo qayb galnay meelaha qaar laba qof lagu abaalmarinayay ayuu ka soo qayb galay gudoomiyaha shaqaaluhu taana waxa ku tusaysaa in hay'adda shaqaaluhu ay waajib ku tahay abaalmarinta shaqaalaha la siinayo waxa kale oo ku tusaysaa in hay'adda shaqaaluhu maanta ay u taagan tahay in dhammaan shaqaalaha dawladda qaranka qof kasta wuxuu mutaystay in rajada la siiyo aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waad mahadsantihiin dadku maxay u jeclaadaan shaqada ayay ka mid tahay tan maanta Farxaan Haybe sameeyay in dadka shaqaalaha loo ogaado inay shaqaale yihiin horta inay yihiin udub dhaxaadka nolosha oo lagu yiraahdo thank you shaqada soo qabatay run ahaan maalin ay iga farxad badan tahay ee garan maayo maanta sababtoo ah wasaaradda badan iyo hay'ado badan baynu abaal marinay shaqaalahoodan qayb ka ahaa ilaahay way nagu guuleeyay laakiin maanta inaynu shaqaalihii hay'adda shaqaalaha dawladda abaal marino wax iga farxad badan oo maanta halkan aan ka sheegayo garan maayo runtii qiimo weyn bay tahay shaqaaluhu guud ahaan waan u hambalyeeynaya waan uga mahad celinayaa waan ku ammaanayaa juhdiga iyo dadaalka iyo u heelanaanta ay geliyeen hawlaha qaranka guud ahaanba uma kala dhacaan kuma kala xigtaysanayno laakiin haddana guddi baan u saaro guddidii wixii ay soo qiimaysay iyadoo u eegaya riboodada performance-ka siduu sheegay agaasimaha waxda qiimayntu waajib weeyeen aan ku abaalmarinaa ciddii halkan anigu ma ogi ay guddidu ka tagtayna sanadka dambe waxaan leeyahay ha u dadaasho ciddii ilaahay soo geliyana waxaan leeyahay abaalka waa mutaysateene jazaakumullahu khayran jazaa waxaan idinkula dardaarmayaa anigoo shaqaalaha hay'adda shaqaalaha guud ahaan ku ammaanaya mar labaad mar saddexaad mar afraad runtii oo waa laga yaabaa in mar badan deecanaan timaado laakiin haddana waxaan ogay 99% waa samayseen wixii la doonayay inaynu gaadhno sanadkii dhamaaday waxaan xaqiijinayaa ina himiladii hay'adda shaqaalaha dawladda 99% aynu gaadhsiinay halkaynu islahayn ha gaadho sanadkaas 5 sano damana waynu qorsheynay way noo qorsheysantahay hambaliyo Allah idin barakeeyo waan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee karaamada leh ee sharafta leh ee milgaha leh ee qiimaha leh ee Ilaahay inuu abaalkiina gudayo ee shaqaalaha hay'adda shaqaaluhu uga soo shaqeeyay inay u gutaan shaqadii iyo waajibaadkii saaraa ugu horeyn waxaan halkan ka hambaliyeynayaa shaqaalaweynaha
hay'adda shaqaalaha dhammaantood waxaan kale oo si gaar ah u hambalyeeynaya shaqaalaha maanta la abaal marinayo ee halkan xafladda loogu qabtay boqolkiiba boqol baan hambalyeynayaa xafladana iyo farxadana waa la qaybsanaynaa waxaan kale oo gaar u hambalyeynayaa madaxda hay'adda shaqaalaha oo barnaamijkan qabtay soo abaabulay gaar ahaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo runtii intii uu joogay waxyaabo fara badan qabtay soona kordhiyay oo ay ka mid tahay tan aynu maanta u fadhino waa markii ugu horeeyay ee la abaal mariyo waan u malaynayaa hay'adda shaqaalaha qaranka shaqona intuu farxaan joogay waa markii ugu horeeyay ee la sameeyay sharcigii shaqaalaha qaranka lagu hagi lahaa oo loo soo gudbiyo golaha wasiirada waa markii ugu horeeyay ee la qoray siyaasadii habraacyada shaqaalaha qaranka lagu hagi lahaa intaas oo dhan waxaa nasiib u yeeshay gudoomiye Farxaan waa ku hambalyeeynaa waxqabadka quruxda badan ee qiimaha iyo qaayaha leh ee uu qarankiisa u qabtay gudoomiye Farxaan horta waa nin fari active dhaqdhaqaaq badan uu sameeyay guul waa u rajeynayaa midoo ka hadlaya waxaan leeyahay shaqaalaha maanta la siinayo moogtahay abaalmarinta ما كوا كرينا وقادرين إنه يوساقلين وحوي ومقياس يوم كمان تمقياس كي سؤال كانوا قاري لقيا من مقياس كي هال كان جوجي إنه بريكارد مركب وحويين وحنا الله صغير إن قف كبني آدم كي أو موت هاي أو قال ماشي هاي بري وحنا رجالية horta aad baad ugu mahadsantihiin in aad bini aadamka aad dareensiisiin inay qiimo leeyihiin marka ugu horeysa waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo dhammaan shaqaalaha hay'adda shaqaalaha dhammaan darajada ay leeyihiin anigoo xusaya qof kasta meeshiisa iyo maskabkiisa oo aan isleeyahay wadadii sax ah way maraya waxaan ku ammaanayaa runtii gudoomiyuhu waqtigii uu yimid siduu u dardargeliyay hawlaha shaqo ee uu qaranka u hayo kulligayo waxaanu nahay dadka u adeega oo ah ama jaariyad ama waardiye shaqada aanu qaranka u haynaa waa ka dadku iyaga naga sareeya oo na doortay oo booska noo dhiibtay marka sharaf iyo karaam aanu u haynaa shaqaalahoodii baanu waxaan dhigayaa halkii uu gudoomiyuhu dhigay wax kasta runtii from bilow ilaa dhammaad waxaan kaloo ku raacsanahay wasiirada iyo dhammaan intii ka hadashayba in hore loo socdo qarawuxu horumara shaqaalaha hormuudkii agarli markay tacaa eganugu ahaadan hawshiyadana haguud